warqana Gabiyaha iyo Cismaan Saalax oo kala ah wasiirada arrimaha dibadda Itoobiya iyo Eritrea oo garoonka diyaaradaha Muqdisho maanta uu ku soo dhaweeyay mas'uuliin uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka ayaa kulan qadaa waxay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wasiirada arrimaha dibadda Itoobiya iyo Eritrea ayaa soo gaarsiiyay madaxweynaha dhambaalo ay ka sideen hogaamiyaasha dalalkooda. sidoo kale wasiiradan ayaa intii ku sugnaayeen Muqdisho waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. boqoshada wasiirada arrimaha dibadda Eritrea iyo Itoobiya ee ku yimaadeen Soomaaliya oo ahayd xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee saddexda dawladood haddana waxa ay muhiim u ahayd dib u eegista horumarka laga gaaray heshiiskii iskaashiga ee bishii Sebtembar ee sanadkan hogaamiyaasha saddexda dawladood ku dhexmaray magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea. shir saxaafad ay wada qabteen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexda dawladood ayuu ku faahfaahiyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Axmed Ciise Cawad waxyaabihii kulamada kadib la isla gaaray. The leaders discussed progress on the trilateral agreement of joint cooperation in the economic, political and security. hogaamiyaashu waxay ka wada hadleen horumarka saddex geesoodka ee ku salaysan iskaashiga dhaqaale, siyaasadda iyo ammaanka. waxayna isla qaateen joogtaynta dadaaladooda isku xiran ee ku aadan nabadda, xasiloonida iyo horumarka geeska Afrika. wasiirada arrimaha dibadda Eritrea iyo Itoobiya waxa ay muujiyeen sida uga go'an tahay isbartaagga shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyahooda iyagoo aad ugu haweyn dib u kabashada Soomaaliya. waxayna ugu baaqeen bulshada caalamku inay taageeraan dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya. United in support of the federal government's efforts. wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Warqana Gabiyaha ayaa sheegay in isbeddelka siyaasadeed ee gobolku uu horseeday dadweynaha saddexda dal rajo wanaagsan isagoo muujiyay sida ay u garab taagan yihiin Soomaaliya. Today we are here to coordinate and to evaluate what we really achieved within this. maanta waxaan halkan u joognaa inaan qiimeyno waxaan ka qabanay wixii aan isla garanay bilo ka hor. sidaa darteed saddexdeenaba waan ku faraxsanahay horumarka aan gaarnay. sidoo kale wasiiradeena booqday halkan ee Eritrea iyo Itoobiya waxaan soo gaarsiinay madaxweyne Farmaajo dhambaal aan uga sidnay ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweyne Siyaas. For His Excellency President Farmaajo, a message from Prime Minister Abiy and President Isaias. Cismaan Saalax oo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea ayaa sheegay in la isku waafaqay ilaalinta madaxbannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee saddexda dawladood. sidoo kale waxa uu sheegay in laga hadlay isdhexgalka dhaqaale ee saddexda dal iyo iskaashigooda dhinaca ammaanka. We respect the sovereignty, territorial integrity and political independence of the three countries, but we are working. waxaan xushmaynaynaa madaxbannaanida dhuleed midda siyaasadeed ee saddexda dal. waxaan sidoo kale ka wada shaqaynaynaa isdhexgalka dhaqaale ee saddexda waddan, sidoo kale arrimaha ammaanka iyo nabadda ee saddexda dawladood gaar ahaanna Soomaaliya. The security and peace in three regions, in three places, especially in Somalia. tan iyo markii hogaamiyaasha wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea isla garteen iskaashi dhexmara dalalkooda ayay dad badan rumaysan yihiin in geeska Afrika ay u horseedi doonto waqti iyo wax wada qabsi cusub.